التقيتي وجود عالمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو هذا الشانل كيغا iyo video cusub. maanta videoga nii wada waxaa waaye wuxuu ka hadlayaa screen timeka ama dhalada waqtiga cunuga ku qaadanay muxuu ugu xun yahay cayaalka ama sidoo oo maxal dhihi jiray oo si wax xun muxuu u keeni karaa cayaalkaaga hadee oo maxal dhihi jiray waqti badan ay ku qaataan dhalada daawashadeeda. But before aanan topica galin subscribe saar si every time wax soo geliyo u aragtid, la share garay waalidiinta oo isdhehaysid way ka faa'iideysanayaan. maxal dhihi jiray like saar videoga haddaa ka heshid, comment hoos kusoo qor haddii su-aal qabtid ama maxal dhihi jiray isheeg wax oo like waxna la wadaagaysid. Also ogow aniga ma ihi like qof oo expert ku parentingka, hooyo cusub ahay, so taasa ay keentay inaa oo like waxyaalaha oo cayaalka parentingka ku saabsan in maxal dhihi jiray isheeg akhriyo. So marka akhriyan waxaa rabaa inaa idinkana nila wadaago si aa uga faa'iideysatiin idinkana. So topiceena bilaabano. Why uu ugu xun yahay screen timeka cayaalka. Article aan akhriyay oo maxal dhihi jiray website ka akhriyay waxay dhaheen maxal dhihi jiray scientific literatureka waxay ogaadeen in oo 4 cayaalbo hal cunug uu developmental delays uu leeyahay cayaalka waliba school age-ka developmental delays waxaa waaye cunuga in uu kasoo daaho waxyaalo oo waqtigaas oo lagu talagalay. For example hadda camal hadduu cunuga oo maxal dhihi jiray uu waqtiga hadalka lagu talagalay uusan hadloonin ama waqtiga socodka lagu talagalay uusan cunugaas soconoonin, markaas waxaasaa laga wadaa developmental delays. Developmental delays yaashaasna oo maxal dhihi jiray like 4 cunugba hal cunug uu qabo waxaa waaye communicationka cunuga inuu dadka la communicate gareeyo ama maxal dhihi jiray sidii uu dadka wax ugu sheegan lahaa ama luqad ahaan ama maxal dhihi jiray isheeg motor skillkiisa sida wax qabsigiisa jirkiisa wax qabsigiisa like camal socodka cunuga hadduu cayaarayo waxyaalahaas iyo maxal dhihi jiray isheeg ka mid delaysyaashaas maxal dhihi jiray ogaadeen inuu 4 cunugba hal cunug qabo. Delaysyaashaasna cunuga wuxuu ka hor istaagi karaa waxyaalo badan oo waqtigaas cayaal ahaan uu u baahan yahay inuu sameeyo. waxaana la ogaaday 98% oo cayaalka u dhaxeeyo 0 to 5 years in oo maxal dhihi jiray isheeg waqti badan ay ku qaataan dhalada horteeda 2 saac ka badan. waxaana usually waxaa la dhahaa 1 saac maxal dhihi jiray isheeg 1 saac ka badan ma fiicna cayaalka in wax daawadaan. waliba hataa ma aha cunug markuu 1 sano meelahaas jiro ma aha, kuwa ka waaweyn waxaa fiican 1 saac le inay oo wax daawadaan dhalada hor fadhiyaan. American Academy of Pediatrics waxay dadka oo maxal dhihi jiray ugula talinayaan in oo cayaalada oo 18 bilood ka yar inay oo maxal dhihi jiray isheeg dhaladan oo la tusinin ama wax dhan oo la daawasiinin markay 18 wixii ka yar inaysan dhalalo tusinin ama maxal dhihi jiray isheeg oo la daawasiinin maxal dhihi jiray suggest gareynayaan
articleka waxay ka hadlaysaa istaadiyaal badan oo la sameeyey. mid ka mid ahna istaadiyaashaas waxaa waaye waxaa la keenay 2441 cayaan oo u dhexeeya 2 sano ilaa 5 sano. cayaal oo jiraan la keenay study lagu sameeyey oo la fiirinayo screen timeka cunuga muxuu u keeni karaa. waxaana la ogaaday screen timeka badan inuu cunuga u keeni karo maxaa la dhihi jiray, inuu cunuga u keeni karo like screening testigiisa inuu hooseeyo. screening testig waxaa usually waxaa loo sameeyaa cunuga si lagu ogaado xanuunadan inuu qabo oo maxaa la dhihi jiray oo delayska oo keeno maxaa la dhihi jiray lagu talagalay screening inay la qaado. so screening maxaa la dhihi jiray screen timeka badan wuxuu u keenayaa cunuga inuu ku hooseeyo isagoo wax qabin inuu ku hooseeyo maxaa la dhihi jiray screening testigaas. waxyaalo badan aana keeni karo cayaalka in oo screening time badan ay helaan ama dhalada wax badan ay hor fadhiyaan. waxyaalo badanaa keeni karo. waxyaalahaas badan oo keeni karana waxaa waaye economic statuska oo reerka cunuga dhale. waxaa also u keeni karto hadee oo cunuga hooyada dhasha hadee maternal depression hadee qabto oo laga wada camal qof marka oo maamada ay dhasho cunuga kadib depressionka ku dhaco. depression arona waxa oo lagu dhaho Soomaali hadaa ka siisid insha Allah commentiga kusoo qor. maxaa la dhihi jiray also waxaana u keeni karto cunuga in uu screen time badan uu qaato haduu hurdadiisa ay yartahay. hurdadiisa maxaa la dhihi jiray hadee yartahay uu ku imaan kartaa. also waxay ku imaan kartaa wax akhriska sida cunuga oo loo baray camal. cunuga guriga uu ku noolyahay hadee oo wax laga aqriyo then maxaa la dhihi jiray screening timekiisa ma badnaanayo liano mar waqti wuxuu ku qaadanaa wax akhriska. laakiin hadee yartahay ama oo cunuga oo maxaa la dhihi jiray oo la barin inay oo wax akhriska oo muhiim yahay waxaas then maxaa la dhihi jiray mar wuxuu waqtigiisa ku spend gareena inuu wax daawado. also cunuga waxa uu keeni karto physical activitieska uu sameynayo. haduu cunuga la geeyo activity-yaasha like camal playgroundka haduu kusoo ciyaarayo ama basketball ama maxaa la dhihi jiray swimming. waxyaalahaas haduusan uu sameyneynin uu guriga kaliya joogo waxay noqonaysaa more inuu daawado TV-ga ama iPad-kiisa. marka waxaasa oo keeni karo cunuga screen timekiisa inuu bato ama inuu yaraado. screen timeka ama dhalada waqtiga badan uu cunugaaga hor joogayo ama uu daawanayo maxaa waaye like developmental effects ka badan uu keeni karo. maxaa ka mid cunugas cayaalka sidaa ognahay cayaalka yaryar waxay wax ku bartaan surroundingkooda oo maxaa la dhihi jiray in oo fiiriyaan maxaa la dhihi jiray wixii ka koobiyaan. hadda for example hadii oo aan soo kaxeeno cunug oo Soomaaliya ku koray ama cunug oo ama baadiyaha meelahaas laga keenay ama cunug maxaa la dhihi jiray westernkan ku nool oo like oo every time oo cayaalka inta joogo usually sanadba cunuga haduu gaaro ama hadaa iskoolka geysad ama haduu guriga joogaba laazim waaye wuu arkaya maxaa la dhihi jiray dhalada. there is no way oo maxaa la dhihi jiray uusan u arkeenin cunuga. so marka hadii la isku keeno cunug oo inta ku dhashay ku kore iyo cunug oo maxaa la dhihi jiray Soomaaliya ama
baadiye specifically oo ku kore maxaa la dhihi jira haddii laisku keeno caqliyadooda isku mid ma noqonayo. hataa cunuga baadiyaha laga keeno hadduu zaa-id u yaryahay iyo cunuga inta joogo marna isku mid ma noqonayan, liano cunugaas dadka agagaarihiisa wax ka barte oo maxaa la dhihi jira isha dadka waaweynkaas u daawanay like uu wax ka barte. saasna waa cayaalkasi wax u bartaan. laakiin inta maxaa la dhihi jira waxaa laga yaabaa cunuga markuu sanad gaarabo markuu oo ama first word ama waxaas uu dhahobo ama hadal uu dhahobo inay oo maxaa la dhihi jira loo daaro TV oo meeshaasba oo like meesha wax ka baranaya meeshaas ay noqoto. muhiim waa cayaalka inay oo maxaa la dhihi jiray agtooda wax ka bartaan. marka effectiyaasha uu u keeni karo cunuga maxaa la dhihi jiray screen timeka waxaa kamid language effect, maxaa la dhihi jiray luqadiisa ama hadalkiisa in oo maxaa la dhihi jiray isheeg uu effect u keeni karaa. liano hadalka waxaa lagu bartaa marka oo adiga hadashid qof kale kula hadlo, marka oo interaction uu jiro oo like laba qof ay isla hadlayaana hadalku baran karta. usually maxaa la dhihi jiray isheeg cunug markaa dhashid waxaa ku dhahayaan nurse-ka ama pediatric-ka like maxaa la dhihi jiray dhakhtarka oo cayaalka waxay ku dhahayaan cunugaaga every time wax kasta aad sameynaysid waa inaa u sheegtid, liano markasta markaa la hadashid oo hadalkaas cunuga taasa u keenayso inuu oo hadhowdi uu hadlo oo maxaa la dhihi jiray isheeg hadalka barto. liano waa la sheekeysanaysa, haddaa la sheekeysatid cunuga saasuu hadalka ku baranaya. also maxaa la dhihi jiray isheeg facial expressionka uu baranaya camal qofka markuu xanaaqsan yahay wajigiisa siyuu ka dhigaa, markuu faraxsan yahay siyuu ka dhigaa, markuu xanaaqsan yahayna siyuu ka dhigaa wajigiisa. so marka cunuga waxaasuu baranaya facial expressionkuu baranaya, liano damoor uu dad waaweyn dhex joogo damoor uu barto maxaa la dhihi jiray isheeg luuqada iyo maxaa la dhihi jiray expressionki. also cayaalka oo screen timeka badan oo wax badan daawado dhalada maxaa la dhihi jiray attentionkooda aad u yaryahay. taasna waxaa keenayso liano videoga markaad daawanaysid videoga wax oo like dhaqso soconaya waaye, so attentionkooda cunuga taas waaye attentionka cunuga wuu yaraanaya. taasna haddaa oo cayaal oo ka saysid maxaa la dhihi jiray isheeg oo zaa-id iPad-ka iyo u isticmaala ama TV-ga waa arki kartaa cabaar yar like markaa u sheekeynaysid ama wax u sheegaysid cabaar yar ma ku dhageysanayaan, like maanta dhan ama way ordayaan ama maxaa la dhihi jiray isheeg. usually sometimes waxaa is dhehaysaa cunuga maxaa xanuunsan yahay laakiin wax kale ma aha, waxaa waaye screen timeka zaa-idka cunuga u keenayo inuu ordo oo maxaa la dhihi jiray attentionkiisa uu yaraado, uu maxaa la dhihi jiray ku entertain gareysmin dadka haddaa camal u sheekeynaysid ama maxaa la dhihi jiray la qoslaysid. cunuga fan waxaas maba u arkaba, wuxuu fan u arkaa markuu oo telefoonkiisa haasto ama TV-ga uu daawanayo. maskaxdana markaas ma shaqeynayso like markii oo cunuga buug uu akhriyo maxaa la dhihi jiray isheeg buugga wuxuu ku kalifayaa in uu maxaa la dhihi jiray wordkii raadiyo maxaa laga wadaa. laakiin TV-ga markuu daawanayo okay wixii wuuna u jeedaa wuuna maxaa la dhihi jiray isheeg wuuna maxaa la dhihi jiray wuuna dhageysanayo camal isaga maskaxdii ma fikirayso like just waxaan la iska daawanayaa. so marka wuxuu u keeni karaa language effect u keeni karaa, wuxuu also u keeni karaa sleep effect. cunuga maxaa la dhihi jiray isheeg hurdadiisa way ka yaraanaysaa, waxaana taas keenayso blue light-ka mar horena waa ka hadle
dhalooyinka oo wax laga daawado usually lightka kasoo baxo blue light waaye oo keeni karo effect u keeni karo bini-aadanka maskaxdiisa. So blue lightka wuxuu keenayaa maxaa la dhihi jiray isheeg cunuga hurdadiisa inay oo sii yaraato. waxaana taas keenayso liano wuxuu joojinayaa hormoonka oo wuxuu joojinayaa dhacaanka hormoonka oo hurdada kasoo baxo uu joojinaya oo la dhaho melatonin la dhahaa. So marka dhacaankaas uu joojinaya maxaa la dhihi jiray isheeg blue lightkaas badan cunuga maxaa la dhihi jiray hadduu waqti badan screenka uu u jeedo liano blue lightkaas kasoo baxaya cunuga hurdada taasa u keenaysa inuu hurdadiisa ay yaraato. Also cayaalka oo 6 bil ilaa 12 bilood jiro wuxuu u keenayaa maxaa la dhihi jiray screen timeka ama blue lightkaas wuxuu u keenayaa sleep disturbance like cunuga hadaa oo seexisid camal 2 saac habeenimo ama 8 habeenimo hadaa seexisid waxaa laga yaabaa like kala barbar inuu soo kaco. haddana usually like hadaa oo markuu cunugaas uu seexanaya xoogaa ka hor hadduu oo tv-ga daawada ama haddii oo maxaa la dhihi jiray isheeg uu maxaa la dhihi jiray like dhalada hadduu daawada wuxuu u keeni karaa inuu hurdada oo ka qasmato camal. dambe waxaa waaye emotional impactiga uu keenayo maxaa la dhihi jiray isheeg screen timeka badan cunuga wuxuu u keenayaa maxaa la dhihi jiray imagination powerkiisa inuu yaraado like maxaa la dhihi jiray liano bini-aadanka waxay leeyihiin like camal haddii sheeko lagaaga sheekeeyo ama wax un like wax waa imagine gareen kartaa like sheekada sida lagugu wada like waxii wuu ku sabirmaa camal. So imaginationka cunuga uu ka dilaya maxaa la dhihi jiray iyo motivationkiisa like camal cayaalka markay yar yihiin usually cunug kasta wuxuu jecel yahay wax inuu noqdo ama wax inuu oo maxaa la dhihi jiray isheeg laakiin hadduu oo screen timekiisa uu badan yahay more like wax oo motivation ma helayo just wuxuu rabaa le meeshas inuu iska fadhiyo meeshas leh ama video game inuu iska cayaaro ama inuu oo wax iska daawado leh iska rabaya wax kale inuu sameeyo ma jeclaanayo like motivation dhan ma helayo. Also because cayaalka maxaa la dhihi jiray isheeg more time markay screenka ku qaataan sida videoga hore kaga soo hadlay maxaa la dhihi jiray isheeg hadhowdii markii oo camal anaga markaa yaryareen markii like waa jeclaan jirna qof markuu noo sheekeenayo ama maxaa la dhihi jiray sheekada waxay ahayd like waxa ugu fiican cunuga like uu jecel yahay marka dadka marka u sheekeeyaan. laakiin cunuga markuu screen time badan qaato like sheekooyinkaas iyo entertainmentiga dadka oo agtiisa ay sameynayaan wax dhan ma ka galin ma rabo wuxuu rabaa le maxaa la dhihi jiray waxa uu tv-ga iyo uu ka daawanayo. taasna waxay u keenaysaa depression maxaa la dhihi jiray isheeg anxiety waxayna u keenaysaa dabeecadda oo ka xumaato liano more oo maxaa la dhihi jiray isheeg cunuga markuu oo wax daawado maxaa la dhihi jiray dabeecadiisa way xumaanaysaa. taasna waxaa keenayso lightka oo kasoo baxayo dhalada maxaa la dhihi jiray liano maskaxda oo wax u keenaya. so marka taasaa keenayso. also ma fahmayo cunuga facial expressionka oo dadka maxaa la dhihi jiray isheeg hadduu screen timekiisa zaaid u badan yahay uusan oo dadka waqti la qaadanaynin maxaa la dhihi jiray isheeg sida also isheeg hore usoo sheegayna wax akhriska camal maskaxdiisa ma shaqeynayso cunuga markii uu wax daawanayo
liano wax daawashada kaama rabto inaa fikirtid, thinking ma kaa rabto, just wax la iska daawanoosaa. So wax aqriska camal cunuga maskaxdiisa ma shaqeynayso. marka topigeena intaasuu noogu ekaa maanta insha allah. Next time insha allah waxaan iisoo gelinayaa sidee cayaalka u manage gareyn kartaa screen timekooda. maxaa la dhihi jiray, waxaan rajeynayaa inaa wax ka faa'iideen videogan. waxaan rajeynayaa videogan inaa wax ka faa'iideen. haddaa oo ka hesho videoga like saar, haddii su-aal qabtid commentiga kusoo qor, ama haddaa oo any suggestion haysid commentiga kusoo qor. waalidiinta kalena la share garay si ay wax uga faa'iidaan. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. until next time, khayr aan rajeyna.